Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynihii hore maamulka Galmudug ayaa maanta soo gaaray deegaanka Godinlabe ee gobolka Galgaduud. Madaxweynihii hore Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxaa deegaanka Godinlabe uga hortagay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo ku-xigeenkiisa Cali Daahir Ciid, xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed, wasiirro iyo xubno ka tirsan guddigii dhismaha maamulka Galmudug. wafdiga madaxweyne Xaaf ayaa waxaa loo soo galbiyay gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, iyadoona dadweyne aad u fara badan ay ku soo dhaweeyeen gudaha caasimadda. Sababta uu madaxweyne Xaaf u soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay tahay sidii loo dhammayn lahaa madmadowga siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii lagu doortay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. ugu horreyntii waxaa gudaha madaxtooyada Galmudug kula hadlay warbaahinta madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. waxa uuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in madaxweyne Xaaf uu maanta soo gaaro caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. maanta waxaan soo dhaweynay runtii madaxweynihii aabihii Galmudug oo taariikh iyo xusuus weyn ku leh Galmudug, isu keenay u tanasulay odatinimo aan horay Galmudug u soo marin ka geystay. maantay in halkan la wada joogo sababteeda lahaa. sidoo kale wixii ugu dambeeyay ama odatinimadii iyo heshiiskii iyo tanasulkii ugu dambeeyay maantay u muujiyay Galmudug, oo runtii aan dhihi karno maanta waxay u tahay reer Galmudug maalin taariikhi ah oo ay dhammaatay khilaafkii iyo waxaabii yararka oo jiray iyo haddii wax laga dhex fiirinaya Galmudug dhexdeeda. waxaan markaa inaan ka caddeeyo wax walba oo kala duwanaansho ahaa oo jiray waa ka heshiinay aniga iyo madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf. khilaaf iyo tabasho Galmudug dhexdeeda ku hartana ma jirto. waa ilaahay mahadiis, aragtideennii bay ahayd, qorshaheennay ahayd inaan walaal kasta. Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ugu dambeyntii warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu ka tanaasulay wax walba oo khilaaf ah oo jiray. waxaan rabaa inaan reer Galmudug sheego iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan, al-khilaafu fitna wal fitnatu ashaddu min al-qatl. qof kasta inuu intaas calooshiisa geliyaa la rabaa. waxaan soo dhirtinay iyo waxaan wax badanna maanaan maqlayn, xoogaa yar bay ayadoo kululaysee. haddana waxaan rajaynayaa odagii waa tanasulay, waa la tuurayaa la oran. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhoweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iga raalli ahaada. dadka ma tiri naqaan anugu, wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda carrada joogtoo dhan kulligiin aad iyo aad baad mahadsantihiin. sida quruxda badan noo soo dhaweyseen, 60 kilomitir baad naga soo dhaweyseen. arrin sahlan maaha. ilaahay waxaan ka rajaynayaa Galmudug inay raysato. dadka kulligood Galmudug inay raysataan loo baahan yahay. Galmudug dhibaatada inay sii haysto looma baahna. anugu geed fadhi keliya maahaye, waxaan rabaa inaan warku waa inoo dambeeyaa. habeen dambe iyo marba xaflad dhigan doonaa aan maaragtay si fiican u kaftanno. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Galmudug waa mid laba maaha, saacaddan laga bilaabo. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. rag badan oo meesha jooga oo aan dareen kaga waa jiraan, iga raalli ahaada. inta uu ku sugan yahay madaxweyne Xaaf magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa la filayaa inuu kulamo la qaato madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Cabdi Staax Fiyaad, SBC, Dhuusamareeb.